halkaan ka daawanaysa muuqaal baahiya aad maqtay Faris oo dadka Talyaaniga ee magaalada Faransa warka jirnka shaqmanta aan soo qaadana bishii 23 bishii 2022 warka jirnka shaq waxaan rabaa inaan ku soo qaato wadanka Soomaaliya oo maanta dawlad ka dhalatay oo wali ra'iisul wasaaraheedii aan lagu dhawaaqay laakiin aan la ansixinin iyo madaxweynihii dawladda federaalka ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud oo socdaal u aaday magaalada Abu Dhabi Masjid Dubai asigoo ummadda Soomaaliyeed abaarta ku habsatay iyo dhibaatooyinka faraha badan ee heesto jecel inuu kala hadlo ayagoo aaminsan inuu ahaa Xasan Sheekh ninkii hore ula shaqay jireen hadeerna shaqo wadaag wanaagsan ay dhaxdooda ka imaan karto inkastoo wax fiican ay tahay in ummadda Soomaaliyeed la moodo inay u soo kordhayaan laakiin aniga maadaama siyaasadan 10 sano ee ugu dambeeyay base 15 sano ugu dambeeyay aan ku dhex jirnay waxa ay muuqato ummadda Soomaaliyeed wali ma aha ummad u bisil in ay dawlad helaan maxaa yeelay shacabka waxa loo baahan yahay dadka ay soo doortaan mase dadka dawladda ah oo ayaga laga rabo inay ummadaas horkacaan kuna horkacaan wax wanaagsan iyo wax qabad wanaagsan iyo waxtar wanaagsan haday kari waayaan inay sameeyaan waxa la rabaa shacabka inay noqdaan shacab ka hor yimaada diido sidii Suudaan oo kale sidii adduunka ka dhacdo oo kale lagu banaan baxo la iska diido waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego dhibaatooyinka ay madaxda idinku hayaan idinkaas ku haysaan waxaa la rabaa wadankan waad aragteen dhibaato kama dhamaato dagaal kama dhamaado abaar kama dhamaato lacag laxada kama dhamaato macnaa taasna waxa ugu wacan shacabka oo sidii rabay laga yeelayo ayagana iska aamusan aan ka hadlaynin waxaan rabaa markay ummadda Soomaaliyeed horta inaan u sheego dadkan waa dad idinka soo dhaxbaxay maamulka markii loo dhiibayna waxa waaye waxa loogu dhiibay dadkan ay ka soo dhaxbaxeen xoolaha ay haystaan iyo xoolaha uu imaan doono iyo xoolaha ay shaqeystaan wadankaas in lagu maareeyo ummadda lagu maareeyo ummadana ay helaan macnaa kaabadii ay macnaa wax ku qabsan lahaayeen ha ahaato iskuulo ha ahaato isbitaallo ha ahaato jaamacado ha ahaato jidad ha ahaadaano masaajidiyo ha ahaadaano dugsiyo quraan macnaa wax ummadaas u danta ah in lagu qabto adduunyadan maanta anaga aan joogno canshuura dadka laga qaadaa canshuurta dadka laga qaado dadka canshuurtaas aruurinaya mushaar ka qaataan laakiin canshuurtii dadkii la aruuriyay waxay ku helayaan wax macnaa u bedela ay samaysan karin markuu kaligiis lacag meel dhigto hadda markaan idin soo qaata anagoo kale hadda aniga wadankan Talyaaniga ku noolahay dawladda waxay ka faala qaaday daawadeyda aniga maanta adaan inta aan joogo hadda meeshan aan ka hadlay aan fadhiyo wax yar hadaan xanuun dareemo telefoon aan dirsanaa ambalaas ay imaanayo waa iqaada dhiiga laga qaada raajiyala leysara iskana leysara wax alla markaas visitadaas kaliya lagu suubinayo at least 50,000 oo euro ay ugu kacayso ninka ii sameeynayo waa nin aqligiisa si inuu wax aruursado wuxuu aruursadina dadkiisa ku daaweeyo ani marka may dhibaysa birito hadaan 100 dhiibay hadaan 200 dhiibay hadaan 1,000 dhiibay lacagtaas lacag dhibaysa ma waxaan ogahay lacagtaas inaan birito wax leegu siinayo sakan waxa jira pension wax la yiraahdo pension waxa waaye qofka markii uu daa u gaaro lacag la siiya oo ku noolaado maadaama uu shaqaysan karin Soomaaliya dhibaatada haysato waxa waa ninka asoo shaqeynayo jidka ku kufaa wax daaweynayo male wax siinayo male wax kaalmeenayo male macnaa
haddii ninkaas oo ilaahay ciyaal siinin oo ilmo la'aan yahay waa dhibaato waa in loo qaaramaa meelaha looga qaaramaa marka waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed ayadaa laga rabaa inay u soo jeestaan nimankan madaxda ah tii wadankan ka tagtay 5 sano iyo 3 bilood ay wadankan u talinaysay waxay ku talinaysay inta dad dhimatay inta saraakiil maqan inta la xiray inta la dhibaateeyay iyo dad wadankooda in laga dhoofiyo Itoobiya loo dhiibay iyo dad badan oo kabahooda lagu aasay wax badan aan soo marnay il oo la hadli karin banaan loo bixi karin wax la dhigi karin waxaan soo marnay ninka la leeyahay madaxweynaha ka ahaa Farmaajo wadanka in oo 60,000 mushaar ka dhigtay asagoo 8,000 mushaarkiisa oo yahay oo 60,000 ka dhigtay u sii dheer tahay markoo dad casuum iyo lacagaha oo markoo baxay oo qaadanaya u sii dheer tahay aan baarlamaan la marsiinin aan meel la geeyay jirin aan la sharciyeysanin oo jeebka la iskaga shubanay marka waxaan rabnaa dawladdan hadda timid ee Xasan Sheekh jidkaas may kula daara doontaa rootiga mase Xasan Sheekh qaladkii dhacay ee dhibaatada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo geystay iyo lacagihii lagu takrifalay iyo cidii ku takrifashay ayuu miiska soo saari doonaa maxaa yeelay hadduu waxaas dhan miiska soo saaro uma suuragelayso inuu kula daarto Farmaajo laakiin markaasi u fiiriso Farmaajo wuxuu sameystay waxay ahayd ciidamadii kulli dadkii inuu xiro qofka rabo oo dhibaato u geysto qofka rabo oo shaqada ka raacday qofka rabo qofku bedelo qofka rabo garaanta ka qaato bangiga komisafoos inuu asiga leeyahay kale oo iska daldasho hadii Xasan Sheekh Maxamuud waxyaalihii dhacay oo wax ka dhihi waayo waxa meesha uu ka soo muuqanayso Xasan inuu kula daararo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo anaga waxaan rabnaa Xasan hore oo madaxweyne u soo noqday 4 sano asigoo dhahayo qabya ninkeeda dhameystir ayaa la qabya tiray hadda Soomaali heshiis ah dunida heshiis la ayuu la yimid wax fiican waaye inaan heshiis naqano adduunkana aan la heshiino taas laakiin waxa ka horeyso wadanka horta amni hela wadanka oo loo ogolaado Xasan Sheekhow in lagu dhihi karo Xasan saa wax u wado waa qalad Xasan oo wax aan sameynaysid wax fiican ma aha in lagu dhihi karo laakiin ninka shalay u ololeynay ee macnaa in dadka la xirin inay dadku xor yihiin inay dadku wax yihiin waa mahad salaadna maanta waxa laga dhigay ninka niisa madaxdeeda ah asigana waan arki doonaa cadaaladdu shalay u qeylinay wuxuu ka dhahayo iyo wuxuu ka dhihi doono asina waa ka sugeynaa annaga waa noolnahay waan hadlaynaa wax alla wixii jiro oo ummadan dhibaato ku ah aan aragno waa sheegaynaa annaga Xasan markaan u dagaalamayna qabiil ugu dagaalamaynin Xasan markaan u dagaalamayna naceeb Farmaajo aan u qabno qabiil ahaan mu raacdeynaynin u dagaalamaynin waxaan u dagaalamayna waxay ahayd in shaqooyinka socdo shaqooyin ummadda Soomaaliyeed u wanaagsan ay ahayd Xasan Sheekh waxaan rabaa inaan u sheego nota bene ha ku qorto 5 maamul goboleed oo wadankan leeyahay waa 5 maamul goboleed oo u shaqeyn ummadooda waa 5 maamul goboleed danahooda ay gaarka u shaqeysto waa 5 maamul goboleed wixii soo galo iyo wixii ka baxay aan la ogeyn waa 5 maamul goboleed aan dakhli celis lahayn waa 5 maamul goboleed oo macnaa ka dhax sameeyay hay'ado lacagaha sidee rabaan ka yeelaan maamul goboleedyada madaxdoodana raali ka yihiin way og yihiin maamul goboleed aan ogeyn ma jiro lacag soo gasho maamul goboleedkaas ha ahaato walow kunyur ha ahaado aan ogoleen ma jiro oo ogeyn ma jiro Xasan oo marka waxaan ku sheegaynaa wadankan 4 sano wax ma ka bedeli kartid laakiin in lagu sii doorto 4 kale lagu sii doorto 4 kale lagu sii doorto dadka gaarsii adduunkan
annaga maanta aan ku noolnahay haddii ilaahay ballantii ummadda muslimiinta oo la galay laga baxo oo kitaabka jaamaca gacanta inta la saarto wixii meesha yaala hore loo qaadanayo ummadda masaakiinta oo diifkooda cijiyadooda cunaya lacagta laga soo aruuriyay faraqa lagu shubto loo samaysto tan cirka tan dhulka tan beriga loo samaysto dadka laga soo aruuriyo dadka la yiraahdo jidada la dhisaa albaabkaada hortiisa jidaa maraayo $200 keen $300 keen dadka lagu dilaayo dadka lagu xoogayo waxaas hore u soo marnay xasano waxaa laga rabaa inaan kula shaqeyno aniga shilin ka marabno la lusku weydiisameeyno waxaan kaaga baahanahay male kaliya ha ka soo muuqato in ummadan masaakiinta ay dhibaataysan oo wax loo helo maamul goboleedyada in la xisaabtamo ayagana xaq waxay u leeyihiin maamul goboleedyada in la maalgeliyo ay isku mid noqdaan maamul goboleedka Hirshabeelle oo aniga ka soo jeedo waa maamul goboleedka aan jirin aan nooleen aan la aqaanin oo wuxuu yahay la garanayn aniga ka soo jeedo maamul goboleedkayga waa ku dhashay waa ku koray wax baan ku soo bartay kubada ciyaari jiray macnaa nin kasto oo meeshaas madax ka noqdo hadduu yahay xataa walaalkay aabe iyo hooyaday dhaleen والله هنك يلين ومداس مساكين دبات هذا لجوهايو إن إسك صعته وعربا على جود لابه وولالكي لكن وحن شيء مدحوينه وحويه هاي هرشبيله أنت قبيل هو دكتور حقي كقوليهين وحي كقوليهين إناد إلى لسيد شرفته هذا waxay kugu leeyihiin dhibaatooyinka maanta ee la daala dhacaya ina wax kala qabatid waxay kugu leeyihiin ina Google iskugu keentid aad ka wax weydiisid si arinta kaliya inay joogto ma aha abgaal xawaadle gaal jecel baadacade heblow fulaan heblow kanow ina joogto ma aha meeshaas dad dhanaa ku dhibaataysan jowhar waxay ahaa jirtay mase shabeellada dhexe waxay ahaa jirtay meesha laga masruufo Soomaaliya dhan sokor wax kasto kobo dacas macna bariis wax aan laga helaynin mala waa dal riike waay waxa haystaa hadana badda ugu dheer saaran waxa haystaa hadana xoolo hadana dhul feertiro haystaa maanta jowharna waxaan ku iri waa maamul goboleedka ugu xun waa maamul goboleedka aan qabin maxallahay aan qabin baarlamaan ay ku jiraan waa maamul goboleedka aan qabin madaxtooyo waa maamul goboleedka aan qabin meel oo ku casumo maanta maamul goboleedyada kale waxaas wax la damo kara ma aha wadankaas waxaan filayaa lacag tiro badan ayaa ku socoto Ali Guudlaawe waxa laga rabaa madaxweyne oo waxa tahay usoo halgamay muddo dheerna ka soo shaqeynayay Hirshabeelle dhibaatada laga soo maray halaha ummadaas ku dhacay aad ogtahay maanta nasiib waxay u yeesheen inaa madaxweyne u noqotid waxa laga rabaa maadaama aad la soo shaqeysay geesigii Ilaahay ha raxmado Maxamed Dheere oo hadda su'aal dadka ka weydiiska ooynayaan ay leeyihiin Maxamed Dheere oo kale ma jiro hadoo maanta joor oo joog lahaa joor waxay naqlahayd meesha ugu sareyso maxal lahay Soomaaliya waxaan aad uga xumahay wax waay adoo intaas ninkaas la soo shaqeysay soo cashuurtu u qaaday oo dadkiisa u gelinayay iyo dadkiisa say u kala dambeeyeen iyo guri kasto inuu open ahay oo la iska soo gali karay oo ninka qof cashuur dhuubanaysa ayna jirin waxaan aad uga xumahay in dadkii hadda baabuur checkpoint yaa la iska dhiganayo nin kasta oo rabo inuu lacagta helo jaabka inuu ku rito marka waxaan leeyahay dawladda federaalka ee Soomaaliya gobolkaas waa inay ilgaar ku fiirisaa gobolkaas gobolada waa ka dambeeya gobolkaas waxa loo baahan yahay isbitaal ma qabo wax oo haysta afarta adduunyo ma jiraan xasan sheekh marka waxaan ka rabnaa maamul goboleedyada inay seem noqdaan
xaqa in loo wada qaybiyo waxaa suuragal ah maamul goboleedyada qaarkood in laga dad badan yahay in shisameed lama sameeyno dadka lama xisaabin marka anaga waxaan leenahay warkayga waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo xasan sheekh maanta asay gacanta kugu jirtaa 4 sano adaa iska leh haddii aad wax fiican qabatin ummadan waa dhibtoodeen ma fila inay madaxweyne kale ay doonayaan jidko maxamed cabdullaahi farmaajo oo falay istir waa falan yahay iska raac hadda israadidna asigoo kale la dhaqanaysaa wax dhibaato ma leh marka hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynaa waxaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed in ay soo indhahooda kala furaan abaarta iyo dhibaatadan haysatana wax waaye kitaabka lagu dhaaranayo ee beenta laga sheegayo shanta maamul goboleed ninka saas u dhaaranaa wixii meesha la qaato dowladda federaalka asaasay u dhaaranaysaa wax meesha la ida qaadato marka wadankan abaar ka bixi maayo ummadan dhibaato ka bixi mayso dhibaatada iyo isdilka iyo mashaakilkana waxa keenaya wax waaye ilaahay diintiisa oo laga leexday wacadkii ilaahay laga leexday iyo iyadoo la jecleen ummadda Soomaaliyeed in ay nabad iyo nolol waarta ay ku noolaadaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh